waxaan aaminsanahay dilka ka dhaca laascaanood inuu geysto Soomaaliland geysto maanta waa taas ma la laayo magacaygu ugaas Axmed Saleebaan shide ugaas Mihigaan waa ugaaska guud ee beesha habar jecle oo isla markaa sheegay xaqiijiyayna dilalka ka dhici jiray magaalada laascaanood inay ahaayeen dilal qorsheysan isla markaana ay fulin jirtay jabhadda argagixisada ah ama hooyada dhashay shabaab ee sanam warbixinta ayaad ku maqli doontaan isla barnaamijka gudihiisa waxaad ku maqli doontaan beesha garxajis oo ku dhawaaqday in Muuse Biixi inta la socota aday dagaal ku qaadaan magaalada laascaanood in ay dhabarka ka toogan doonaan waxaan kaloo barnaamij ku maqli doontaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo la fikir ahaa gacan ku dhiigle Muuse Biixi la fakar ahaa oo maanta ka degay garoonka diyaaradaha aadan cadde isla markaana raba in uu madaxweyne Xasan Sheekh la qaato shirar albaabadu u xiran yihiin khuseeyana xaaladda magaalada laascaanood magacaygu waa Hilaacsool waxaan idin rajeynayaa in barnaamijkan caafimaad qab ku daawan doontaan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waa idin wada salaamay meel kastoo dunida daafayda ka joogtaan waa Hilaacsool oo idin leh sidii hore iyo calool adeeg qof walba waxa uu rajeynayaa barta uu joogo inuu ku haysto amni iyo amaano wax walba oo weyn ka jecel yahay xaqiisa inuu ka siiyana Abba subhanahu wa ta'ala uu fududeeyo aan ku horeeyo ugaas Axmed Saleebaan Allah sharfo ugaasku wuxuu ka dhawaajiyay ama uu xaqiijiyay dilalkii ka dhici jiray magaalada laascaanood inay ahaayeen dilal qorsheysan dilalkaasna amarkeeda uu lahaan jiray gacan ku dhiigle Muuse Biixi ina kaahin fulinteedana ay lahaan jireen ciidanka jabhadda argagixisada ah ama hooyada dhashay shabaab ee sanam ay lahaan jireen ayuu ugaasku cadeeyay ugaas Axmed Saleebaan Allah ku sharfo ugaas qof walba oo dhiig la ciduu doonaha ka soo jeedo waa uu dareemi karaa dilalka ka dhaca magaalada laascaanood cidda ka dambeysay iyo cidda fulisa dhowr jeer oo anigu laftirkayga aan ka hadlay ayaa jira dilalka magaalada ka dhaca inay SNM ka dambeyso waayo waxaan qiyaasay ama aan ku cabiray raayi ahaan waayo qofka eekii uu sareeyo waa uu dareemi karaa dhibta meesha ay ka socoto waana uu dareemi karaa dhibta meesha ay ka timaado bal ila fiiriya dil ba magaalada laascaanood ka dhacaya xaafad buu ka dhex dhacaya xaafadaas saldhig uma dhawa cid uma dhawa bulsho ah 2 daqiiqo iyadoo aysan ka soo wareegin oo qofkii gacan ku dhiiglaha ahaa uusan kiiloomitir in ka yar uusan siiba ordinba waxa dilkii ama meedkii dul taagan qayb ka mid ah ciidanka jabhadda SNM su'aasha meesha taala ayaa waxay tahay dilka meesha uu ka dhacay xaafadaha dariska la qayb ka mid ah baanan ogeynba dilkaas laga yaabay qayb ka mid ah in xabadda shanqadheeda ku soo baxeen iyaga yaa u soo sheegay yaa yiri halka dil baa ka dhacaya meesha dilka uu ka dhacay roonda kumaysan hayn saldhig umuusan dhaweyn isla markaa waxaan aaminay qofka dilka geysanaya in uu isla askarta ka tirsan yahay ama 2 ahaadeen ama 3 ahaadeen dilka marka ay geysteenna waa xaqiiqo thumma wallahi waa xaqiiqo dilka marka ay geystaanna inay ku biiraan ciidankiyo meel dhow u taagan hadhowna ay ciidanka dib u soo raacaan taasna waa xaqiiqo waayo sidoo ugaaskuba sheegay jabhadda iyo ciidankeeda markii laascaanood laga saaray muxuu dil u dhici waayay maxaa ay u beegsan jireen jabhaddu cidda iyaga u shaqaysa maxay u leen jireen cidda kaliya ee iyaga u shaqeeya jabhaddu taasna waa isweydiin kale ujeedooyinka ay ka damacsanaayeen waxaa ka mid ah dhulbahanta reer ha iskugu dhaco ha yiraahdeen xilkan ayay isku haystaan ha yiraahdeen dadka waxa leynaya misaal ka soo qaad sababta ay u leynayeen dadka iyaga u shaqeeya waxay ka rabeen misaal ahaan inay yiraahdaan oo kale SSC ayaa dadka leynaysa waxayna ku leynaysaa Soomaaliland bay u shaqeeyaan war ninkiisa ma dilo haddaan u baahanahay dhiigayaga inaanu dilno mana naqaano kugu dhimay ka dhimayna ma naqaano kuwa horgalada ah Allah saacado soo diraysaan
baan qurna ka goyn lahayn taana taasaan horta idinka leeyahay markaa muuse biixiyo horta wax kuu yaalla haba yaraatee ma jirto barooro badanna way dhici doonaan haddii aadan dib u noqon ciyaalkan yaryar aad meesha soo saftayna aadan dib u celin wallaahi uma wallaahi baroor badan waa ay dhacaysaa haddeer waxaad ku booroorataan diyaarad baana lagu duqeeyey oo aad saarataan hargeysa idii saaran waxaa ballan ah meel walba iyo guri walba albaabkiisa inaad lafa ka soo lushaan oo aad tidhaahdaan waa laftii hebel iyo laftii hebel muuse wax kuu yaalla ma leh beesha garxajisna waxaan leeyahay waa siduu garaa jaamac sheegaye iidoorow haddaad noo kala hadhaan waan idiin kala reebaynaa iidoorow haddaad noo kala hadhaan waanu idinkala reebaynaa laakiin haddaad is soo raacdaan ogaada waxaan dumar ahayn oo idinka haraya ma jiraan xaqiiq weeye ninka dhulbahantaana xabad looma bilaabo ninka dhulbahantee ama siciid harti ama daraawiisheed xabad looma bilaabo taasaan idinka leeyahay ila yara daawada ninkii muuse biixi ahaayo wareeray oo jah wareeray oo meel allaali meeluu wax ka bilaaba garan la oo marba laba kaaro kharaaba gaari ku jiidaya bal ila yara daawada adkaatay ninkii muuse biixina waad aragtaan baan u malaynayaa hawsha uu wado muuse biixiyow waxaan ku leeyahay horta anu qof caafimaad qaba kuuma arko xaqiiq markaan ka hadlo inaad dhimirka tahay ayaan anigu u badiyaa ama wayba tahayba qof dhimirka la inaad tahay waayo qofka dhiigga bini'aadanka markuu ku qubaysto ilaahay xiska waa uu ka qaadaa miyirka waa uu ka qaadaa bal muuqiisa ila eega bal suuweygiyaa ila eega isaga dhan ba cadaab baa ka sokaysa labadan kaare ee aad la wareegaysa muusow aa marba gaari ku riixayso iyo ciyaalkan aad soo miran habaabisa waxaan ku leeyahay dadkoodi u celi dadkoodi hee u celi hal qodob baan uga baxayaa oo aan sii raacinayo oo keliya halkaa qodob aan uga baxayana waxay tahay qodobkan war isaaqow haddaad noo kala hadhaan waanu idinkala reebaynaa middaa meel ku qorta haddaad noo kala hadhaan waanu idinkala reebaynaa waayo anaga taariikhdaana xustay waxaanu nahay idinkuna taariikhdaana xustay taariikh labaad oo madowna way idiin qormi doontaa buuggana way idiin geli doontaa taariikh labaad oo madow ayaa buugga idiin geli doontaa marka waxaan idin leeyahay idoorow haddaad noo kala hadhaan waanu idinkala reebaynaa aan ku socda ninka la yidhaahdo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo isaga laftirkiisa arrinkan hawl ka wada kana mid ah shakhsiyaadka muuse biixi gadaal ka soo riixaya oo maanta caga dhigtay magaalada muqdisho ayaa wuxuu la qaatay shir albaabadu xiran yihiin isla xilligan saacaddan aan joogno ee galabnimada madaxweyne xasan sheikh oo labadooduba ay ka siman yihiin inuu muuse biixi magaalada laascaanood dagaal uu ku qaado war aan idiin sheega haddaba mid daraawiish waa tii soomaaliya oo dhan xoreysay daraawiish israacdayna soomaaliya ma taqaano daraawiish israacdayna soomaaliya ma taqaano war maxaan idii haray haddii mar qalcadii taleex la furay barnaamijka ismaaciil cumar geelle iyo wixii ka soo baxaba waxaan ku maqli doontaan barnaamijka xiga waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo